soo dhawaada asxaabay xilli cusub waxaan ka hadlaynaa dahabka mar walba dadka waxaan isu sheegnaa wax badan horta dadka dahablayaasha ama dahabka raadinaya waxaan u sheegayaa dahabka cimilada dhulka la jooga waxay leedahay ilaa shan waxaa jira dhul waxaa sidoo kale jira saddex cimilo maanta marka xilligan waxaan tilmaami doonaa cimilada dahabka horta ku badan yahay waa cimilada kulul sidoo kalena cimilada dahabku ku yar yahay waa cimilada qabow sidoo kale cimilada dahabku dhexdhexaadka yahayna waa cimilada dhexdhexaadka ah halka dahabka waa qodob muhiim ah oo dadku inay fahmaan loo baahan yahay sidoo kale dhulka dahabka laga heli karaa wuxuu weeye waa dhul baa jira shan dhul baa jira waa dhul durdura leh dhul webiye leh iyo dhul buura leh iyo dhul balli leh iyo dhul bannaan dahabka ugu badan waxaa laga heli karayaa dhulka webiyada leh iyo dhulka durdurada leh labaduba dahab badan bay yeeshaan webiyada iyo durdurada webigu waa meesha ugu dahab badan sababtoo ah meel aad u dheer buu ka biyo keenaa durdurkuna waa meesha labaad oo webiga ku xigta meesha saddexaad oo ku xigtaahayna waa buurta meesha afraadina waa ballida meesha shanaad waa dhulka bannaana 100% ayaa webiyada dahab laga helaa haddii aqoon loo helo meelaha ku habboonna laga baaro 100% dhulka durdurada ah 90 ilaa 85 dahab baa laga helaa sidoo kale buuraha 60 iyo 5 ilaa 60 dahab baa laga helaa dhulka bannaan 40 baa dahab laga helaa sida marka aad u qiimeysaan waxaad ogaanaysaan xaqiiqada dahabka ku saabsan taasina waxay jaangoyn doontaa sida aad uga fikri lahayd dhulkaagu marka adiga aad ka shaqaysid ma dhul kululba ma dhul qabowba ma dhul dhexdhexaadaba waa qodob muhiim ah meesha ku jira sidoo kale dhulka adigu aad ku shaqaynaysid ma webiba ma durdurba mise waa dhul buuraleeya mise waa dhul bannaana mise waa dhul balli leh adiga ayaa xisaabtaas inaad isku baaratid oo isku shaqshaqatid isku jaangoysatid adiga ayaa laga rabaa haddii aad tahay tiimka ardayda ah oo annaga naga tirsan waad ila soo xiriiri kartaa wixii faahfaahin ah waxaanad ku heli doontaa qodobkaaga ardaynimo aad ku diiwaan gashanayd weeye waana in lagula shaqeeyo haddii aad tahay qof daawadayaasheenna asxaabteenna ka mid ah waad ila soo xiriiri kartaa laakiin sharaxaadda dheeriga waxaa lagu siinayaa qiimo lacaga oo markaa lagugula heshiin doono baa lagugu siin doonaa haddii aad horay aad buugaagteenna u iibsatay ama research keenna oo la socotay wax badan baa qofkii buugga gatay dahabka xogtan xog ka tiro badan buu hayaa haddana laakiin waxaan siinayaa waxaa laga yaabaa markii qoraalka wax lagu gudbiyey markii sheekada wax lagu gudbiyey waxbay ku kala duwanaan karaan marka qaybtii sheekada ayaad helaysaa qof kasta oo tiimkeenna ka mid ihi haddii uu halkan subscribe gareeyo like-na saaro share-na sameeyo aad baan ugu faraxsanaan doonaa sidoo kalena waxay naga caawin doontaa inaan barnaamijka si fiican u sii wadno sababtoo ah bartaan internetka waxay gaaraysaa bulsho badan taasina waxaa ka dhalanaya dhaqaalaha iyo horumar inaan ka gaarno taasna waxay kalifaysaa inagu meeshii aanu shaqo kale laga sii raadsan lahaa ee la xamaalan lahaa ama la shaqaysan lahaa ama la ganacsan lahaa in
dee halkaan uu laga shaqeeyo. Haddii laga shaqeeyana taasi waxay keenaysaa maalin kasta in xog la soo gudbiyo. marka haddii xog maalin walba la helana xogaha qaar hadday ku anfici waayaan qaar ku anfacaya ayaa meesha ka soo dhex bixi doona. intaa markaan qaybtaana halkaa dhigo, adiga shakhsiyan hadda nala jooga, waxaan jeclaan lahayn haddaad barnaamijyadeeni hore oo la socotay inaad nooga sheegtid 1 iyo 2 message-ka commentiga nagu soo siisid wixii muddadii aan wax sharaxaynay aad ka fahantay, aad commenti ahaan noogu soo qortid. haddii aad tahay ma garanaysaa qof aan jeclayn inuu commentiga ku soo hadlo, si gooniya waad noogula soo wadaagi kartaa. intaas ayaa faa'iiday, dhiirigelin bay noo noqon kartaa. haddii waxyaalo kaa dhiman oo badan aad dareemaysid, meeshii aad wixii kaa dhimanaa ka dhammaystiran lahayd waa annaga, nala soo xiriir. haddii aan intaa ka gudbo, horta midabka dahabku waa midabkee? midabka dahabku waa midabka jaallaha ah ee halkaa ka muuqda. midabka dahabku waa midabkee? waa midabka jaallaha ah ee halkaa ka muuqda. haddii aad dahabdoon ahayd, midabka jaallaha ah weeye dahab haddaad maqashid. hana ku kadsoomin, waxaa jiri kara waxyaalo kale oo jaallo ah sida aan horay u soo sheegay. haddii aad macdan kale doonaysid, macdanta aad doonaysid magaceeda iyo macnawigeeda waa inaad taqaanaa. waxay kaa caawin doontaa inaad macdantaa heli kartid. sidoo kale waxaan idin sheegayaa, waxaan haynaa buuggi dahabka oo dhammaystiran oo 197 page ah. wuxuuna ka hadlayaa dahabka sida loo helo, siduu u egyahay, meelaha laga helo, qalabka lagu helo, daawooyinka lagu kala sifeeyo, sida loo iibgeeyo, iyo awoodda uu caalamka qiimihiisa uu jaangoyntu ka leeyahay. sidoo kale buugga macdanta Som1 baan isagana haynaa. labada buugba waa iib, barteena website-ka qofku ka iibsan karaa, sidoo kalena waa halkan ku heli karaa. mahadsanidin, ku soo dhawaada barnaamijka ku soo biira.